shidaalka marka la sheego iyo khayraadka adduunka waa waxyaalaha la isku hurdiyo waxyaalaha la isku haysto horta yaa maamula khayraadka adduunka nimanka de of course de imka de adduunku imka wuu isbedelay muddo dheer wuxuu ahaa unipolar wax la yidhaaho ama xoog kaliyo ka taliya intii uu dhacay maganaysa dee Russia USSR dee ay burburtay laakiin intii ka dambeysay waxay ahayd unipolar dee Mareykanka xukumayay imikana tradekan imika jooga wax la isku dilay wax kale maaha waa khayraad khayraadka la isku dilaya waa petrol waa biyo waa macdan tasoomaad karan inagana ilaahay intiiba uu nasiy laakiin niman dee adduunka u taliyo markay noqoto energy-ga ama petrolka u taliya maxaa cusub iyo xalqada cusub markasta waxaan isku daynaa inuu idin keeno waxyaalaha markaas runtii cajiibka ah in nolosheena bedelaya taariikhdeena cusaya hadda maanta maxaa ka wanaagsan petrolka iyo biyaha iyo geyiga Soomaaliyeed ka ah Somaliland waqtiyadiisa taariikhda badroolku goorma ku soo bilaabmay Soomaali laga helay maxaa ka wanaagsan in markaas la helo dadkii markaas khibrada ahaa ku soo jiray 30 sano ugu dambeeyay 40 sano ugu dambeeyay markii carabaha badroolka laga qoday markaas ay taagna in badan ku shaqeynayay hada maxamuud jaamac jabal waa khabiir ku takhasusay badroolka markaas ahna bara jaamacadeed in badan markaas ka soo shaqeynay marka hore ku soo dhaw maxaa khadar aad baan u dhawahay oo mahadsantahay waxaan adigan ku mahadcelinaya podcast-kaba aad baad mahadsantahay farxad loo taynaa maanta program in badan baad markaas petroleumka biyaha aad ka shaqeynaysaa geyiga Soomaaliyeedna taariikhahood way goortii la helay iyo waxaasoo dhan waa qayb inta badan la isku weydiiyo horta maxaa caalamka ku cusub maanta waxaa ku cusub oo dadkuba ka warhayaan day Somaliland tahay day Soomaaliba tahay madaxweyne cusub oo la doortay Mr Trump oo mar labaad la doortay oo adduunka baqdin galiyay Canada uu leeyahay si qabow baan ku qabsanaya economically Greenland baan qaadanaya iyo Panama xoog ku qabsanaya iyo Middle East kan waxaan ka dhacayo waxa soo dhaweeynaga wayn saameynayaan oo yes maxamed marka laga sheekeynayo petrol iyo geyiga Soomaaliyeed aanu taariikhda dib ugu noqono waqtigii waxaan kala qaybin doonaa waqtigii koloniga ee gumaystaha waqtigii dawladdii dictatoriyadda ahayd ama waqtigii dawladdii kacaanka iyo waqtiga marka la joogo oo markaas Somaliland 30 sano ay markaas xornimadeedii haysatay horta petrolka markii ugu horeysay Soomaaliya laga helay xilmuha waxaan ka yara horeysiinayaa un markii ugu horeysay petrol bal helay wax la yiraahdo petrol waxay 1859 1859 waxa laga helay Pennsylvania waxa helay in la yiraahdo Edwin Drake Soomaad garan oo Pennsylvania laga helay inaga markaan ku noqono waqtigii gumaystaha 1910 1910 ayaa wax maaragtay proof of petrol ay heleen 1910 markii labaad Ingiriisku de Soomaalidu waxay ahayd mustacmarad Ingiriis bay ahayd waxa la baaray petrol exploration calaamado badan laga helay 1955 oo ay ceel ka qodeen area la yiraahdo dhagax shabeel oo berbera u dhow ama berbera ah oo laga helay 330 barmiil marka laga helay markii dawladdii Maxamed Siyaad Barre 1988 ama 1988 ninba si uu fahmo waxa la keenay shirkado badan baa la siiyay concession ama imtiyaasaad wax la yiraahdo ama عقود كونتراكت لسيء سيوباران شركة شيفرون باتيمي كونوكا تيمي ويبدناين لكن وقت مو سامحين ديو دجالة دي مقرنسا سامي سكية كدعي صوماليا كدعي نيا سامي مركا شركتهم مركا ويكجورين حتى تحسفتيد 1990 مركي بوش وأمري إن لجيا صوماليا لجيا عيدما dadka lagu caawiyo si aanay maaragtay faamin ama gaajo u dhicin macluul u dhicin waxay ahayd operation restore hope bay ahayd marka la soo galay wax kale ma soo galayne wax la doonay in la qabsado ceelasha petrolka la qabsado la doonay waa 1990 markii dawladda Soomaaliya dhacday aanu noqon markaas Ingiriiska markuu helay miyaanu sii wadin
ingiriisku markii uu taskariyey wuu stop gareeyey 1955 ilaa 1960 intaan istiqlaalka qaadanay dee waxa weeye inaguna ma garanaysaa dee wanagii jibooney markiiba aanu ku darsanay Soomaaliya biga Soomaaliya Greater Soomaaliya la doontay Soomaaliya weyn la doontay 1926 June 1960 marka muxuu ku dambeeyay ceelkaas adduunku waxa kuma 7 shirkadood oo Seven Sisters la yiraahdo oo ay ka mid tahay Excel Mobile, Esso, BB, British Petroleum, Royal Dutch وتضبع أدونك حكومة وحنا يمكن أركز سيدي قلاص أي دجالي سيل ور أدونك داعية هذا وحكي لماها وحوي وربشد ريد create chaos أمر ماشي وربشد هذا عضو يقولون أمام معدن أمام بترول أمام ريسورس كهال لصبح مركا دولة شو شيء مركا ويكب حست نجوا حنو قادناي هذا كمان 26 جون بنو قادناي وقتي دولة سياد بحري محا مركاسي سهمين أمام حاش بترول الحلا استيتنات كي تقريبا صور دافني وحكومة محمد سياد بر الصومالية أو الحكومة شركة ضفر بدن أووين الشفرون وبيج كمباني وي تصمت كونوكو تصمت كرن ده مسوكو بكرو يا لسي كونسيشن أما عقود لسي أي كوباران أما يكون سهميان أما يكون قدام بعيال لكن أنا عيال القديم ما حسوس تورنتي لكن شركات مرها دايما ديمبا وحي هوبان إن مش بوتنشال إيكونومي أو بترول أو تل يبينكرو أي كوتشران وي إن وحى مركزي دعاية دجالكي سوماليا سومالان حرمية سوق عادتي مالان مدايم كده دوري صدق سنة أبا ويهيستي مركزي مدح بناني دي صبر وقتي دولة عقال الله ونحرسته إلى إيمك محل سهمية محل بارة. I think دولة دي هدي رد يدنا نكون نقول أنت ده السومان لسه نقطة مدح بناني ده لسه نقطة لابد يكون أي الشركة السي concession أما ميلا أي دي بلوكيو أي قاتان وبرايم كم تهاي شركة برايم كم تهاي أسانتينا تو I think إنه كوشرتي سومات قرن ودولة دي محمد بن عقال تي لبادنا وحيد لابد يكون يسدي دولة دي ظاهر مدحوين الظاهر ريالك الحين لابد يكون يستدي ويقولون مركا أي مادين شركة هان جنيل أي مادين لابد يكون لابد يتوانكي صدق يتوانكي من شعله هاي إن مدحوين السلاينا يسوقون الشركة ده وسي concession سي لو باري. أوكي ما كان واحد عليها بلوكيلا. بلوكيو السيني. بلوكيلا السيني. لابد بلوكس صدق مركا ده بلوكيو وين محل باري مركا. واحد الشركة ده سل السيو يقولون ده واحد ويمني واحد كلام معها أوريد داتون كي هايستان الشركة دي هوري مركب بالك اللي بسنية صح صمت كرن هذا الحسوتيت السودان وحكد عي بريجي مركب شفرن تيمي إن السودان أي باريسي مركب دم أي كوك عين عقوبات كده أما عنقبتك سرقين هذا وكوري عليا كونسيشن كيشنتي بقول أما $500 مليون عليا يقولون وكنت كراميش $500 مليون كيو عليه إن مريكان كيو عليه شركة دي مريكان مركز الجانس كانين إنه السيدة سوق له يجو شركة ده إنه إيمانية شركة ده وين ماشي هيستي بيك كل بقى أنو أنقبا إني كقاتين كلوريجن إيروي كمان يقرنيه داتين ويا هيان سو ده ده سازم كإنتربريتيشن تاعي وحلا ده لو وقعدوا ماشي إنه كتشرب بترول إنه كتشرين ده سو كان مركز شركة ده إنه إيمانية والشركة ده أوج ماشي إن على مدى فربضن سومان لان لقيه الكلوب بترول إني كويالين ويكمل تاي تام كوسو شيء إن يمن تندشار كنا ونسكو عهد إنها جوراسيكيا يو كونفورتا إيثيوبيا وعلى مدى واوين يوم مركب قاركود بترول اللفت يسون تصبحوا ليكج من يرد اللاعب تصبحوا تشوف السيب لا يراهو كيس اللي صبحوا سلح له كلمة ولا قد كاس كابيا لقى قودي مركب اللي قوديهم بيركن واحد مدوم مش كصبحي مركب هيدروكربون بوها بترول مركب التذكارية القادر الإنجليزي كالجي وحنا نقضي بترول بنقضي لكن واحد جت مركب قاركود دم كانت بربلة تكتد حتى أي اثنين كوارك حاجة برجاش السوق دي مركو دي مشوري هاي ده يسكلي دو برشة كصوب حياة ده شو يبغى يابا يسوق مدو ودمود سيد شمع عقلة على جرنا يا مكتي وعلى مدى الوقرته تصوم الجرن مركا نيمان كاني وحي أركان إن سيستم بترولي وشرو صوم الجرن أو لو وش تشابين كرو ما إيكونوميك بقى مس إيكونوميك هديك لما بيه معدم كل وقتيا أنا أدرس فوقين شكل جنال وحي مركز الشيك تي
inay markaasi sahamin balaanan ku samaysay bari weliba salaar waqtiga dowladda muuse ee dhowaan ahaydna in la yiri waa la qodayaaba kuwa maxaan wax ka haynaa taasi waa xaqiiqo weeye waxaanay ahayd shirkadan ganeel bay ahayd eerduna sidaad sheegtay waa saraar weeye aniguna runtii ma jeclo inaan sheego areada exactly meeshay tahay ma jeclo due to security oo dee waa la qariyaa mugti marka hataa qodiisid hataa waa la qariyaa cidnooda ma sheego markaasi weli way socotaa shidaalka marka la sheego iyo khayraadka adduunka waa waxyaalaha la isku hurdiyo waxyaalaha la isku haysto horta yaa maamula khayraadka adduunka nimanka de of course de imka de adduunku imka wuu isbedelay muddo dheer wuxuu ahaa unipolar wax la yidhaaho ama xoog kaliyo ka taliya intii uu dhacay maganaysa dee Russia USSR dee ay burburtay laakiin intii ka dambeysay waxay ahayd unipolar dee Mareykanka xukumayay imikana tradekan imika jooga wax la isku dilay wax kale maaha waa khayraad khayraadka la isku dilaya waa batrool waa biyo waa macdan tasomad karan inagana ilaahay intiiba uu nasi laakiin niman dee adduunka u taliyo markay noqoto energy-ga ama batroolka u taliya oo Seven Sisters la yiraahdo ku soo aan hore u soo sheegay way ka mid tahay Exxon Mobil iyo Esso iyo British Petroleum iyo Dutch Royal Dutch iyo adduunka xukumi jiro haysan jiray imikana dadkan super powerka meesha jooga arsaaqdu meesha ku hadhay mostly waa Africa da Soomaal garan haddaad u fiirsatid had iyo jeer meesha nimcadu ku badan tahay ma batroolka ma macdanta dagaal baa la gelinaya marka inagu as Afrikaan ahaan ama Somaliland ahaan waynu nabadda ilaalinaa haddii nabadda la ilaaliyo inaga lafteena la soo bixi karna marka taariikhda batroolka laga sheekeynayo caalamka wax badan baa laga qoray wax badanna waa laga sheekeeyay qorayaa badan baa qoray marka qaar marka meel laga helo shidaal in dagaal lagu kiciyo waxaan xasuustaa buugii la oran jiray Resource War oo markaa runtii aad u qiimo badnaa documentary badanna waa laga sameeyey ma oran kartaa geyigan Afrika markastoo wax laga helo haddana dagaala ka hoos qarxa